Haddaad guriyootid qof gacantaada qabsanaya, waxay tilmaamaysaa amni iyo ammaan. Waxay tilmaamaysaa wadah toosan qofkuu hagayo. Waxay tilmaamaysaa u baahnaanshaha waalidkaaga inaad taladooda iyo maxay aad u baahan tahay. Waxay kaloo tilmaamaysaa caawinaad inaad caawinaad qofka heli doontid. Haddaa guriyootid adoo gacmaha waalidkaaga qabsanaya, mise haddaa guriyootid qof aad taqaanid adoo gacantiisa qabsanaya, haddaa guriyootid qof familkaaga gacantiisa adoo qabsanayo, mise qof kaloo shisheeye aadan aqoonin adoo gacantiisa haysto, haddaa guriyootid ninkaaga oo gacantiisa qabsanaysid. Arrimahaasoo dhan fasir ayay leedahay. Ila socdo walaalayaal. بسم الله الصلاة والسلام على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قفك عدو كريوده asigoo qof gacanta qabsanaya, yacni qof ayaa gacanta ku qabanaya riida dhexdeeda. Guud ahaan haddaan uga hadlo, taa waxay tilmaamaysaa qof wado wanaagsan kuuga hagaya, wado sabaab leh wanaagsan. mise waxay tilmaamaysaa qof mashaakilo garabkaa siinaya, yacni mashaakilo dhibaatooyin markaa ku haysta inaad garab u helaysid. haddaa guriyootid waalidkaaga gacmaha ku qabsanayo, mise hooyada mise aabaha qof kamid ah gacanta ku qabanaya riyo ku aragtay, mise labadooda wada jiraaba, taa waxay tilmaamaysaa inay markaa arrimay mashaakilo ku haystaan aad u baahan tahay waanadooda. haddaa lacala riyada aragtid waalidkaaga u tag la tasho. haddaad guriyootid qof familkaaga kamid ah oo gacanta ku qabsanayo, taa waxay tilmaamaysaa isku xirnaanshaha familka, yacni sida walaalkaayoo kale mise ninkaagoo kale gacanta ku haysta ayaad riyo ku aragtay, mise xaaskaagoo kale. taa waxay tilmaamaysaa isku xirnaasho iyo is-aaminsanaan dhexdiina taale isfahan ayay tilmaamaysaa. gabadha weli la guursanin hadday guriyooto qof dhalinyaro ah iyadoo gacanta qabsanayso, taa waxay tilmaamaysaa doonis mise guur qof iyada yacni isku fiican yihiin. waxay kaloo tilmaamay hadday guriyooto matalan qof iyada gacanta qabsanaya eena qofkaasna aan aqoonin, taan waxay tilmaamaysaa inay ka heli doonto caawinaad qof, eena waajihi doonto mashaakiladeeda, yacni awood i karti u yeelan doonto mashaakiladeeda waajihi doonto. gabadha weli la guursanin hadday guriyooto wiil iyada xiriirka la dhexeeyo mise ay u doonan tahay iyadoo gacanta haysata, taa waxay tilmaamaysaa isfahanka iyo jacaylka dhexdooda yaal inuu yahay mid xoog badan. gabadha la qabo hadday guriyooto qof gacanteeda si xoog ah qasab yacan u qabsanaya iyadoo raalli ka ahayn, taa waxay tilmaamaysaa mashaakilo. hadday guriyooto qof gacanteeda qabsanaya iyadan ay raalli ka tahay, taa waxay tilmaamaysaa ka gudbid mashaakilo, khaasatan mashaakilka iyadii ninkeeda matalan dhex yaalo oo kale. hadday markaa arrimo mashaakilo ay jirto, haddayna jirinna arrimo ku adkaa inay ka gudbi doonto. qofka hadduu guriyoodo gacan dheer adigoo qabsanaya haddaa riyo ku aragtid, waxay tilmaamaysaa sadaqooyin iyo acmaal wanaagsan. gacanta dheer waxay kaloo tilmaamaysaa leeyin mufasiriin qaar sida ibn siriin wuxuu leeyahay waxay tilmaamaysaa cimri dheer. waxay kaloo tilmaamaysaa leeyin ka guulaysa cadaabo, wallahu yaclam. gabadha la qabo hadday guriyooto gacan madow ah mise midabkeed maarina iyadoo salaamaysa, yacni gacan madow isla xaalada madow aan dabiici ahaynoo hore aan u aqoonin, madowga midabkeena aanan ahayn, taa waxay tilmaamaysaa ma wanaagsano midda iyo gacan go-an adigoo salaamayo mise yacni oo ku qabsanayso kale haddaa aragtid ma wanaagsano, khayrkeeda ilaaha weydiisa. walaalayaal haddaad su-aalihii jawaabo badan aad u baahantihiin waxaa ka heli kartaan janankayga kale. sidaa ogsantiin janankaas waa iga xumaaday, sidaa darteeda kan u samaystay. kanna waan ka gaabiyey, waan dareensanahay. marka insha allah waxaan samayn doonaa dadaal badan, idinkana dadaala dhinaciina. haddaad dhiirigelin badan aad isiisaan anigana waan dadaali doonaa. sheer gareeya in badan like saara oo subscribe saara, asxaabtiina kasoo saara oo gruubyada ku sheer gareeya. marka anigana markaan dhiirigelin badan aad isiisaan anigana waxaan samayn doonaa dadaal badan insha allah. keygii hore su-aalihii jawaab badan aad ka helaysaan descriptionkan idiin soo dhigi doonaa asiga tiktokeygaba.